waxaan ka hadlaynaa shayga ugu muhiimsan oo lafdhabarta u ah inaad guulaysatid, inaad shaqo heshid, in aad nolosha macno ka yeelatid, inaad wax soo kordhisid. qodobka isaga haddii aadan haysan waxa aan ka sheekeynayno, waxa akhrisay, waxa aad baratay, waxa aad baran doontid, meelaha mari doonto, shaqada aad qaban doonto, kulligu waa zero. qodobkaas waa qodobka lafdhabarta u ah horumarkaaga iyo dadnimadaada iyo aakhiro macno inaad yeelanaysid. qodobka ahmiyadiisa si aad u fahantid waxaan ku bilaabanaa ilaahay subxaanahu wa tacaala quraankiisa dadka qodobkaas aan lahayn sida uu u sheegay. wuxuu yiri qoladaas aakhiro marka la tago waxay dhahi doonaan wa kunna nakhuudu maca alkhaa'idiin. dadkaas iska soconaya oo gaalada ah oo ilaahay ku caasiyoobaya ayaanu sidooda kala ahaynoo waxa ay samaynayaan baa la samaynayn. qodobkaas waxa weeye in aad lahaatid yool nolosha. yool haddii aadan lahayn waxaa tahay qof fashilmay, qof aana micno lahayn. subaxdii marka aad soo kacdid ma taqaanid waxa u soo kacdid, shaqo aad qabanaysid ma taqaanid, sababta u soconaysid ma taqaanid, shaqada aad shaqaynaysid sababta u qabanaysid ma taqaanid. waxaa noqonaysaa dameeri dhaan raacday. marka koowaad qodobka faa'iidooyinka laga dhaxlo inaad yool lahaatid waxa weeye marka koowaad noloshaada waxay noqonaysaa nolol abaabulan oo micno leh oo ujeed leh. qodobka labaad waxa weeye markii aad shaqaynaysid waxaad dareemaysaa inaad koritaan samaynaysid oo yoolkii kuu deganaa baa hiigsanaysaa. marka saddexaad markay caqabado ku qabsadaan yoolku wuxuu ku siinayaa inaadan niyad jabin oo waxaa naftaada ku leedahay maya maanta isdhiibi mayo, yool baan leeyahay, horay baan u soconayaa. qodobka afaraad waxaad dareemaysaa isbeddel iyo horumar oo meeshii aad shalay joogtay waxaad uga dhowdahay biri meeshii aad u socotay. intaas waa waxyaabaha asaasiga ka ah oo aad maaragtay ka faa'iidaysay inaad yool lahaatid. waxaa ku badbaadaysa inaad leedahay yool. haddii aad yool leedahay waxaa noqonaysaa qof guulaystay. haddii aadan yool lahayn waxaa noqonaysaa qof fashilmay. muuqaalka soo socda waxaan ku baranaynaa oo idinkugu sharaxayaa sida yool loo degsado, sida yoolkaas loo qorsheeyo, sida loo hirgeliyo. tan iyo kulantideena dambe waxaa inoo ballana annaga oo noloshayda ka bedelna bilaa yool.